بلد كان لكن حيبتي ودنك والله ولا لها أساقاتي قلت يا أساقاتي أنت زي قرية كدس أنت صوت له ليه هاي وسدنجر وأفن سما حتى أنتوا كان ويلجيز أبيزن وحكومة دمان ونن العقل ما ضلن أنتوا كان واحد وانا لما قراني اجلي وحقوق الله وانا لما قراني خيانة قرن وحائه سياسة الصومالي إذا بخيسي إلى مالنتي الصومالي دلتي وحي أهد سياسة اللي ديه جري شنط الصومالية جيجيجا معنى هذا مركز تكتي وحائي اعترافتي إن جيجيجا إثيوبيا هذا حكمة جيجيجا لوga hadlayo waa xigmadaas jigjiga magaalada Soomaaliyeed waay kalaamkaas sidaa maqashid waa nin aan wadan ahayn warkiis jigjiga iyo Addis laba shay oo kala duwan waay jigjiga marka madaxweyne keena oo tago ka dhanteeyo waxay la mid tahay asiga oo shantii Soomaaliyeed ka tanaasulay اعترافينا إن دجان كاس وكميد yahay إثيوبيا مال Soomaaliya ay sheekada soo noqotay wili lama yaqaan marka jigjiga filinkeeda filin sahlan ma ah khiyaano qaranna waxa lama yiraahdo khiyaano qaran iyo dastuurka oo si bareer loo jibiyo waxa lagu eedeeyay madaxweyne kamid intaba ma sugnaan qalbi dhagax ummadda Soomaaliyeed loo sheegaya madaxweynaha lagu raacdeynayo waa filinka dadka mucaaradka oo maalintii 8 February laga raayay halgankay bilaabeen ku taagan war la socotaa inta mar ay ka fashilantay inay wadanka fashil galiyaan oo isdaba joog ah marka ummadda Soomaaliyeed waxa laga rabaa inay ogaadaan wax madaxweynahooda in xafiis looga raacday ay tahay iyo waxay saaheen iyo dadkan inay ku taageen iyo dadkan wajiyadooda maxay tahay profile-kooda muxuu yahay waa kuwan haddii to waa fasiray waxaan jecelahay inaan ummadda Soomaaliyeed ku baraarugo bal horta dadkan mooshinka wado waa kuwama in la isweydiiyo horta aad aan ugu faraxsanahay in doodeen ay ka mid tahay xarafka musuqmaasuqa marka ahmiyad weyn u leeyahay wadankeena u leeyahay musuqmaasuqa waa aad iyo aad shay muhiim ah ummadda Soomaaliyeed ha yaraadaan ha weynaadaan inay ku baraarugsan yihiin musuqmaasuq marka laga hadlaayo waa hantidii wadanka oo la wada lahaa oo qof islahaysiiyo universal waxaa ku waajibtay caawo waxaan waa duuban yihiin inay research sameeyaan oo waxa meeshan laga sheegay ay soo research gareeyaan soo hubiyaan ummadda Soomaaliyeed dib ugu socdaan dhahan wasiirka habeenkii wixii uu sheegay beentaana ahayd ama runtaana ahayd horta taas caawo universal ku waajibtay aniga weligay audit ima baarin qof ahaan wasaaradda arrimaha gudaha markaan tagay anaa u yeeray hal baaraan irmaashan dadaan fiicnayna iiga horreeyay hal baaro waa la baaray waxbaa laga helay wixii soo yaraa leegu wareeji markaan ka tagayna waa u yeeray waxaan meel nadiif inaan ka tagayo kaalayo imaada waa la baaray xil wareejinteeday ka mid ahayd baaristi halkii sano meesha joog inaa baartaan rabaa universal oo ummadda Soomaaliyeed dib ugu soo celisaan qof weyn oo mas'uul oo intay ummadda shacabka soo horfadhiista been u sheegay waxaa muhiima in inta baartaan ummadda u soo bandhigtaan taas horta intaasan uga baxay laakiin waxaan rabaa inaa ummadda Soomaaliyeed u baartaan walaalkeen hadduu dhiiridaas leeyno caaw meeshan ka sheego
soddon jir ah oo yiri 30 milyan leh abidkiisna wasaaraddaas maaliyadda meelaan ahayn oo ka shaqeeyo subax u shaqo tegey ma jirto xoolahan faraha badan oo leeyahay bal caawa ha la sheer gareeyo ummadda Soomaaliyeed 30 milyan uu yiri 30 asaafkiis ka shay zakan ka baxsho yiri wiil zakan laga bixina waa ifan soma waan naqaanaa asiya kooxdiisi hal habeenkii doorashada hal habeen waxay bixiyeen 13 milyan oo dollar markaas 2 milyan u baahdeen deyn soo qaateen deengay ka soo qaateen waa la yaqaan waxa soo lacag intee ka timid kooxdiisi asiga waxay kharash gareeyeen 45 milyan oo dollar hebel rid hebel soo saar ay ku kharash gareeyeen habeenkaasna waa payrollkii adduunka ugu weynaa lacag la bixiyo kii ugu weyneeday baxsheen lacagta intee ka timid aniga guri kuma lihi beledkan laakiin xeebtii waddanka oo la wada lahaa asaa qaatay dhulkii oo dhan asaa qaatay intaasaa gurye ka dhisay intaasoo hoteellow leeyahay waa 30 jir waa ifan soma lacagta intuu ka keen weligiisna aabihiisna wax ugama dhiman oo nin lacag lama dhalin intuu ka keena waxaan rabaa universal adigu waa eedeeye asiguna waa eedeeye inaad baartaanaan rabaa oo ummadda Soomaaliyeed oo na dhegaysanayso caawo meel kasta naga dhegaysanayso aa u soo bandhigtaan oo aad tiraahdaan ninkaana waxaanu sheegay markaan baarnay waxaan noo soo baxay aday arrintaas u fiican tahay qofku waa iska soo fadhiisan karaa waxbaa iska sheegi karaa haddaan u soo noqdo eedeynta madaxweynaha la eedeeyey meel kale yaan laga raadinin dadkan wax yaray ku qanceen ummadda Soomaalida halligaaya wax yaray ku qanceen oo ah madaxweynaha in tashwiish lagu furo si yacni tii dhiiqada ahayd oo ay mas-uulka ka ahaayeen iyo tamaanta jirto ra'yi caalamka la yiraahdo waa isku mid intaas yartaa ay waddanku baabi'inayo iyo inay fursad helaan ay ku soo noqdaan waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay wejiyada fiiriyaan berrito 2020 waa leedii imaanayo codaa leedii weydiisanayo haddii abed wejiyada fiiriya dadka ka barta aada u mahadsan tahay labadiina xildhibaan dooda ku saabsan wixii dalka ka dhacay musuqmaasuq ku salaysan waxaan jeclaan lahaa mar haddii labadiina marna asagu ku ataagay marna aad ataagtay waxaan jeclaan lahaa aan fursaddaas aanu ka faa'iidaysano waxyaabaha kale uga faa'iidaysano oo aan hakino eedaha ku saabsan musuqmaasuqa iyo dhibaatooyinkooda oo laba shakhsi u dhexeeya waxaan ka hadlaynaa u joognaa qaranka Soomaaliyeed iyo sidii xildhibaanada Soomaaliyeed ay arrimaha socda kaalin ugu yeelan lahaayeen loona xalin lahaa waxa u fadhidaan laba group oo ku kala aragti duwan mooshinka laga gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya sidaan la soconno qodobadii shanta qaybood ahaa waa taataabanay waxbaanu ka sheegnay dadka Soomaaliyeed dabcan dunida joogana waa dhageysanayaan wixii runka ah iyo waxa aan jirina ayaga laftigooda waa garsoor ku filan inay kala saxaan waxa dhacaya annagu uma joogna maanta maxkamad ma nihin oo ma xalinayno qaladaadkan sidii u jireen mana xukumayno laakiin waa ku siin doona laakiin waxaan ifinaynaa waxaan jira waxa ka jira sida yihiin waxaan ku ifinaynaa iyadoo ay joogaan dadka keenay waxaan ifinaynaa iyagoo ay joogaan dadkii ka soo horjeeda qodobka ku saabsan 9 bishan la gudbiyey xilka qaadista mooshinka laga gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa qabtay xogiyihii guud ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu soo saaray isla 11 bisha warqad qoraal oo hadda horteena taalo oo la faafiyey warqadaas waxaa soo xeexay xogayaha guud buux waraado horena waxaa u qabtay buux mooshinkii madaxweynaha laga geeyey wuxuu sheegayaa in markii 92 xildhibaan ay soo gudbisay kadib 14 xildhibaan ay geeyeen cabasho ku saabsan
in laga been abuurtay oo aanay saxiixeen mooshinkaasna aanay hore uga mid ahayn wuxuu caddaynayaa in mooshinkuu isku bedelay 78 sida dastuurka Soomaaliya uu qabana laba meelood meel inay tahay inay mooshinka soo gudbiyaan 14 uu ka jaray 78 uu ku soo koobay 78 daasna wuxuu sheegayaa buux in mooshinkaasi uu jabay oo aanu dastuuri ahayn warqadaas qoraalka ah xogayuu soo saaray horena moshinku u qabtay oo xogayuu u qabtay afartii xildhibaan marka laga tago